gudoomiye waxaa jirta dhawaan waxa laga dhawaajiyay in ammaanka Muqdisho la hoosgeliyo maamulka gobolka Banaadir sanado ayaad ka ahayd magaalada Muqdisho duqii magaalada sidee u aragtaa in ammaanka Muqdisho waqtigan oo doorasho ay soo dhawdahay in maamulka gobolka la hoosgeliyo anigu aragtidayda anu مثل waagii aan gobolka joogay waan codsan jiray ma codsan jiray in lay hoos keena ma dhihi jirin laakiin waxaan dhihi jiray waa inaan awood ku leeyahay nabad sugidda gobolka iyo booliiska gobolka sababtoo anigu waxaan haystay fikir waxaan haystay hab aan uga shaqaysiiyo haddaadan marka awood ku lahayn qof aadan awood ku lahayn wax uma diri kartid moogtaa marka waxaan codsan jiray inaan awood ku yeesho oon anigu maadaama gobolkan ay ka shaqaynahayaan in aan anigu mas'uul ka noqdo shaqada loo dirahayo aniga waa la ima ogolaan oo marnaba fursadaha hadda la siinahayo gudoomiyaashan ani la ima siinin waa la igala dagaalamahay fursadahaas laakiin hadda xaaladdu meeshay taagan tahay waxaa weeye fiiri ayaan dhaweyd waxaa dhacday Belgiumka markii la qarxiyay waad ogeydeen airportka Brussels markii la qarxiyay wasiirkii arrimaha dibadda weligiis wax kale ma dhicin halkaas mar bay dhacday wasiirkii arrimaha gudaha uu is-casilay casilaad buu geeyey sababtoo wuxuu dhahay mas'uuliyad darraa timid annagana maalin meeqa qarax baa dhacday meeqa dhimashaa dhacday meeqa dad la dilaa dhacday meeqa xildhibaan baa la dilay meeqa dad mas'uulaha la dilay meeqa hanti dad baa la baabi'iyey meeqa hoteelaa la qarxiyey fiiri hoteeladii baa la qarxiyey madaxtooyadii baa la soo galay la qarxiyey maxkamaddii sare la qarxiyey baarlamaankii baa la qarxiyey airportkii baa la qarxiyey wax noo haray ma jirin weli ma maqashay qof jaga looga qaaday oo lala xisaabtamay ma maqasheen qof jaga looga qaaday ama iska casilay ma maqasheen ma dhicin marka waxaa waaye dadkii bay ka badatay arrintan marka waxaan ku samaynayaa marin habaabin marka la leeyahay amnigii ayaa waxaa lagu wareejiyey gobolka waa marin habaabin waa arrin siyaasadaysan arrin daacad maaha waxayna u ahayn arrin daacad inay u ahayn waxaa gobolkii ma la siiyey tuuliskii ama qalabku amniga ku dhowr lahaa ma la siiyey macnaheed lama siin way lama siin ciidamadii waxay amar ka qaataan taliyihii nabad sugidda taliyaha gobolka Banaadir nabad sugidda wuxuu amar ka qaataa taliyaha nabad sugidda ciidamadii asaga haysta kuwii warka soo aruurinaya asaga haysta gudoomiyaha gobolka kuwa ciidamada warka soo aruuriyo kama ridaan warka uma sheegaan gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha waxay u sheegaan taliyahooda gobolka u sheegaan taliyaha nabad sugidda wuxuu rabuu ogeysiin wuxuu rabuuna ka qarineen soo ma garan marka amni ma aha waxa waa nidaam siyaasadaysan weeye oo maaragtay indhaha dadka laga duwahayay fashilaadan badan oo isdaba taala oo qofna uusan mas'uuliyaddeeda qaadin in qofna lagula xisaabtamin ayaa indhaha laga duwahayay intaas waa nidaam siyaasadaysan buu ahaa marka laga soo tago arrimahaas ma isleedahay amaankii wax badan waa uu ka bedelaya haddii Muqdisho uu hal qof amarkeeda uu bixinayo waxay ku xiran tahay qofkaas aragtidiisa qofkaasi waa inuu leeyahay aragti security waa inuu leeyahay aqoon security waa inuu leeyahay waa inuu garan karaa waxa ka maqan iyo waxa uu haysto waa inuu noqon kara qof raadsan kara waxa ka maqan soo ma garan qof raadsan kara waxa ka maqan waa inuu noqdaa hadduusan aragtida lahayn fiiri halkan aan fadhino haddaadan aragtida ayna ku siinaynin dhirtaan in la jaray u baahan tahay haddii ayna ku siinaynin wax kale ma samayn karaysid marka waxaa waa qofka maaha waa aragtida qofka aragtidii securityga ma leeyahay qofkii waaye hadduu leeyahay ma haystaa dadkii u baahnaa ilaa kaligiis wax ma qabanayo dadkii u baahnaa ma haystaa ma raadsan karaa si awood uu ku raadsada ma leeyahay dhaqaale uu ku raadsada ma leeyahay skillskii ma jiraan soo ma garan qalabkii ma jiraan waxaasoo dhan ayaa isku qoolfalan waxaa isku qoolfalan baa hal mar maalin waxaa inta la riyoodaa waxaa la dhahay amnigii magaalada Muqdisho waxaan ku wareejinay waxaasi waa marin habaabin in laga xishooday ku fiican tahay waa marin habaabin mas'uuliyad darraana meeshaas ka muuqato runtii sababtoo mas'uuliyaddii baan meel la saarin berrito markay qaraxyo dhacaan ayaa waxaa la rabaa in la dhaho gudoomiyaha gobolka mas'uulka ah gudoomiyaha gobolkiina wax uu mas'uulka ah lagu wareejiyay ma jirin wax iska bedelay ma jirin habkii hore uu ahaa askar gaar lama siin information gaar lama siin qalab gaar lama siin dhaqaale gaar lama siin wax loo kordhiyay ma leh marka waxaa hadhow eedda asagay ayaa la saari eedda dadka laga wareejinaya asaga eedda loo wareejinaya gudoomiyaha gobolka eeddan iska hadlay marka meeshii kale indhihii baa ka soo leexday asagii indhaha asagiina wax loo kordhiyo kale ma jirto sidaasaan leeyahay sidaasaan u arkaa anigu waa aragtidayda gudoomiye waxaa jirta markii xilka aad wareejisay 14 Maarso laga soo bilaabay ilaa hadda shacabka Soomaalida inta badan waxay arkaan dhaliilo aad u jeedinayso dawladda Soomaaliya ma la dhihi karaa dhaliilaha aad u jeedinayso dawladda waxa saldhig u ah inaan xil aadan ka helin waqtigan dawladda maya dadku Soomaalidu ma fahamsan siyaasadda dadkan ogow dadkani boqolkiiba 70 waa dhalinyaro
ya boqolkiiba 70 shacabkaana waa dhalinyaro dhalinyaradaasna waxay dhasheen burburka dabadiis ama burburka markuu dhacayay ilmo yaryar bay ahay marka dawlad weligood ma arag nidaam xisbiyeed iyo nidaam siyaasadeedna ma arag soo ma garan marka ayagu waxay la soo boodi ninkan xil buu rabo war horta xil hadaan rabo xil wax iga xiga ma laho anigu xil Soomaali baan u ahay xil waan raadsan karaa laakiin inaana xil rabin baa kugu daliil ah madaxweynuhu wasiir ku xigeen ma iga dhigay anoo maqan igama qaadin soo ma garan wuu ii yeeray wasiir ku xigeen baan kaa dhigi buu dhahay waan ka diiday kabacdi waan wada hadalnay safiir Washington baan kaa dhigi buu dhahay wax ka weyn miyaa jira safiir Washington Soomaali diidi lahaa ma jirin waan diiday ma rabin anigu in aan ka dhex shaqeeyo dawladdan ma rabin sababtu waa maxay waxaan arkay aniga habkan rabo inaan u shaqeeyo iyo aragtida igu jirta iyo daacadnimada igu jirta in ayna ku jirin baan arkay marka sidaas awgeed ayaan anigu waxaan go'aan iska gaaray in aanan dawladdan ka mid noqon madaxweynahana waan u sheegay oo ma rabaan dawladdan inaan xil ka qabto mana kuuguma imaanayo reerkaygaana kuuguma imaanayaan ku iri soo ma garan questionka marka waxaa weeye markaad gudaha ku jirtid oo dawladda ka mid tahay mise markaad bannaanka joogtid markaad dawladda aad ku jirtid wixii dhaliil ah waxaad ku dhex sheegaysaa dawladda dhexdeeda prime ministerka u tagaysaa wasiirka qaabilsan baa u tagaysaa madaxweynaha u tagaysaa guddiga amnigaad ku dhex hadlaysaa wixii dhibaato jira waa sharci lama ogola inaad bannaanka ka hadashid marba dawladda haddaad ku jirto haddaad goosatid inaad bannaan ka hadashid waa inaad resign garaysaa oo ka baxdaa dawladda iisug aan dhamaysto wax yar laakiin markaad bannaanka dawladda ka noqotid shacab caadi aad noqotid aniga marka ra'yigayga iyo dhaliilahayga shacabka ayaan muujinaya dawladda ana xisbi baan samaystay xisbi baan sameeyey xisbigaas macnaheedu waxaa waaye waxaan isu diyaarinayaa yoom min al-ayaam intay doontaa noqoto xisbigaas inuu xukunka qabto soo ma garan dhaliilaha berito annaka waana lagu qabsan karaa marka dhaliil markaan aragno marka shacabkii kama hadlahayo ma ay yaqaano mas'uuliyadiiba ma garanayo waan sheegaynaa marka khaladkaasaa jira haddaan intaan dhaliil sheegay mid aan run ahayn haddii la keeno ee mid aan fabrikeeyey oon anu sameeyey hadday noqoto anigaa dhagahaasaa layga durahayaa sidii lo'dii gudoomiye madaxda aad maanta dhaliilayso waa madaxdii shalay aad la soo shaqaysay adigoo ah gudoomiyihii gobolka Banaadir Axmed Duqan Muqdisho markaas waxaad sheegtaa waqtigan madaxda sida u shaqeynayaan in qaabka shacabkii uu rabo uusan ahayn qaabkii shacabka uu rabay uusan ahayn markii hore maxaad xilka intaad iskaga casishaad u lihiweysay shacab yahow sidaad rabteen dawladdan uma shaqeynayso oo xilkii dawladda aan ka hay waan ka tagay maya waxaan isbarbar dhigahayay jagada markaan hay hawsha aan qaban karo shacabka u qaban karo iyo haddaan ka tago waxa dhumahaya waxaan marka arkahayay hawsha aan shacabka u qaban karo in ay ka weyn tahay markaan ka tago maaragtay waxaan qaban karo inay ka weyntaan arkahayay sidaas awgeed anigu waxaan dareen bidahayay anigu mar hore layga rabay in layga taqalluso dhowr pressure baa lay saaray meelo badan baa layga saaray inaan anigu dhaho waan iscasilay sababtoo ah eed baa laga cararahay meeshan anna waxaan rabay inayna dadku dhihin tarsan asagaa meesha ka tegey oo iscasilay waxaan rabay in la arko waxa in qof shaqaynaya oo shaqadiisii si fiican u socoto in xilka laga qaaday waxa looga qaaday bas qabiil ayaa looga qaaday darteed soo ma arrintaasaan rabay aniga marka dantu waxay ku jirtay inaan ka tago iyo inaan shacabka u shaqeeyo waxay ku jirtay inaan shacabka u shaqeeyo soo ma garan tan labaad ha dayelsanin markaan ku jiray anigu waan la hadlahay ama guddiga amnigaan ku dhex hadlahay ama ra'iisul wasaarahan ku dhex hadlahay ra'iisul wasaaraha hortiisa guddiga amniga ayaan waxaan ku iri yeesug ra'iisul wasaaraha guddiga amniga oo fadhiya ayaan ra'iisul wasaaraha hortiisa dhexdiisa waxaan ku iri amni magaaladan kama hadli kartin dadkan jeneraaladan iyo wasiirka amnigu kama hadli karo ilaa tan iyo tan iyo tan iyo la sameeyo mana samayn karaan markaasuu dhahayaa mas-uulka ah markaasaana wasiirka mas-uulka ah sababtoo gobolkiina asagoo hoos yimaadaa booliiska asagoo hoos yimaadaa nabad sugiddiina asagay hoos timaadaa aniga marka waxaan ku hadli jiray dawladda dhexdeeda adigu ma ogaan kartid dadkan shacabkana ma ogaan karo anuu hadda shacab baan ahay xaq waxaan u leeyahay dawladdan wixii dhaliila inaan bannaanka keenaan u leeyahay sababtoo anigu la taliyana uma ihi umana shaqeeyo wadanina waan ahay oo wadankayga waan u danqanahay waan u xanuunsanahayaa maadaama aan wadankayga u xanuunsanahay qaladkii la galay waan sheegaynaa sababtoo taariikhda maalin waxaa imaanaysa dad daacad intay yimaadaan ay taariikhda qorahayaan waxaan aan qorayno oo sheegayno facts weeye waa run qof iskama dhaliilno annagu markay sax ku taagan tahayna waan ammaanaynaa oo sax bay ku taagantahan leenahay markay qalad ku taagannahay qalad baan leenahay gudoomiye inta aad dhaliil hadda madaxda aad u soo jeedinayso mid la mid ah ayaa lagu soo jeedinayay markaad ahayd gudoomiyihii gobolka Banaadir adiguna markaad
shir jiraad qaad ambur baahinta aad la hadlayso waxa dhihi jirtay dadkaasi mucaaradka waxay ka soo horjeedaan horumarka Muqdisho adigana soo hadda laguma arko in horumarkii dawladda aad ka soo horjeedo aniga daliisha la ii soo jeedin jiray waxay ahaayeen wariyaal ujeeddo gaar ah leh soo ma garan tarsan waa shaqo ma qabto ma ahayn tarsan wax ma qabto ma ahayn tarsan waxaanu sameeyay ma ahayn waxay ahayd qaarkood odayaal hadii jiray yes odayada aniga lama hadli jirin odayada ana saxay odayadu qalad hadda odayadana soo ma hadlin soo ma dhihin caasimadan waxa iska leh reer hebel baa iska leh soo ma dhihin Soomaalida kalena martibay ku tahay anigu waan ka hadlay soo ma garan fiiri odayada waa laga odayada sidee wax qabad ana ku eedeeyay odayadu markay xaalka iga qaadanayaan ana ku iri odayadii gobolkan ummadda waxaan nabadeeyay oo isku keenay reer Puntland odayadooda reer Hargeysa odayadooda odayadeena ana weydiin oday weliga ay dhaliilay ma arag keen hadaad haysid cajalad oday dhahaaya tarsan wax ma qabano ay dhaliilay keen ma jirto laakiin muxuu ahaa media habaysan oo dana gaar ah kuwaas waan iska celinay anigu waan iska celinay sababtoo inay been sheegayaan ogaa gudoomiye sidoo kale waxaa jirta marka laga hadlayo oo si hoosaan u hadleen wax qabadkaadii inta badan waxaa la sheegi jiray in wadadan Maka al-Mukarrama oo mar muhiim u ah dawladda Soomaaliya kaliya inaad dib u habeen aad ku sameysay laakiin degmooyinkii kale ay yihiin kuwo wili dansan sidaas ayaa lagu eedeynay waxaad fiirisaa waad joogtaa wadanka aniga markii la ii dhiibay magaaladan siday ahayd 5 degmaan ka talinaynay 5 degmo ma ka shaqayn kartaa magaaladan 5 degmo adoo gacantaada ku jirta oo 10 iyo 1 ay ka maqantay gacantaada ka shaqayn kartaa shabaab baa magaaladan haystay magaaladan dawlad ma haysan waad ogay dabka ay ku jireen dhankiisa kale markaan marayna xabadaan isaga ridi jireen xabaday nagu soo ridi jireen magaaladan magaalad gacan dawladeed ku jirta ma ahayn that's number 1 number 2 magaaladan magaalo la soo haweysanahay jidkaas Maka Mukarrama cidlu ahaan jir wax baabuurna ma mari jirin dad maraayna ma jirin magaalada dadku waxa la rabaa inay gadaal u noqdaan magaaladan mugdi bay ahayd magaaladan 9 saac maalinimo waa laga kala tagi jiray magaaladan cabsi bay dadku ku noolaayeen mugdi iyo gaajo iyo maaragtay wasaq bay ku dhex noolaayeen magaaladan goormay magaalo noqotay waxay magaalo noqotay aniga markii la ii dhiibay magaalo noqotay ka hor ma magaalo ma ahayn midda kale waxa weeye magaaladani inta jidkani waan dhisnay yes kan kalena waan u soo soconay fiiri waxaan gelinay dabbaan gelinay kanaan wadnahan dab gelinay soddonkan dab gelinay waxaan rabnay marka inaan jidadka dhan dhisno waxaan heshiis la galnay World Bank 36 milyan buu u hayaa jidka wadnaha iyo jidka iyo soddonka in la geliyo ma laga doonto waajo injineeradii ila shaqeynay waa joogaan 36 milyan fiish guberna 4 milyan in lagu dhiso markii la ordayo dadka xoolahooda shabshabin la gelinayo maxaa loogu orday sababta waxay u haysteen World Bank lacagtiisa in ayaka lagu shudoonay u haysteen 4 milyan oo u taala in anagu ka soo xaqiijinay u haysteen in lagu shubayo lagu mana shubayo World Bank lacagtiisa lacag kale isma dhex gasho lacagta u taala hadda ha ka soo qaadaan waxa u taala 36 milyan trust fund ayaa u yaala ha ka soo qaadaan jidkan wadnaha waa la qiimeeyay jidkan wadnaha iyo jidka soddonka ha ku dhisaan soo ma garan ideadan yaala Soomaaliya oo dhan qorax waa jiri jirtay yaa keenay fikirka qorax in la isticmaalo koronto laga dhigo aniga tarsan aha keenay ideadaas waatan hadda gobolladoo dhan koronto ay ka dhigteen qorax yaa dajiyay qaxootigii dhibaatada badnaa international community ay dajin weyday oo badbaado yaa sameeyay gobolka sameeyay ani ragii ila shaqeynay gabdhihii ila shaqeynay sameeyay dawlad dhexe wax shilin kuma lahayn international community 2 bilood baan maamulaynay saan u habaynay yaa dajiyay xerada badbaado yaa dhisay annaka dhisnay soo ma garan yaa bulshadan isdhexgeliyay yaa fikiray nidaamkii fikirkii maaragtay isdhexgalka bulshada tiiraayo bixinta yaa keenay gobolada dhan inaan u gudbinaa rabnay war meeshani Soomaalidu xasad baa ka buuxa uma ogolo qofka wixiisa uma ogola laakiin waxaan oo dhan waxa keenay inaan sheego aniga waxay ahayd in bilad laygu siiyo saan u maamulay kaligeen gobolka sidoo u maamulay qaxootigaad ogeyd 37,000 dad saan u maamulay haday ogaan lahaayeen iyo 37,000 oo kale hadana ku jira dawladda dhexe wasiirro guddi baa la sameeyay maxay ka yimideen jaaka la soo qaadan jiray nigtaaba la soo qaadan wafdiga imaanaha la tusi jiray yaa 24 hours kor taagna yaa biyaha u sameeyay yaa korontada u sameeyay yaa cuntada u sameeyay yaa dadkii tiriyay dadkii baan xataa tirinay soo ma garan buugaag baan u sameeynay soo ma garan meeshani waxa uu watigaas aad sheegayso wax badan loo qabtay hadana waxa jirta tacdiib badan ay la kulmeen yaa xagee kala kulmeen gabdhaha qaarkood kufsi ayaa loo geeyay yay kala kulmeen hadda anigu mobilis baa gacanta ugu jira iyo mas'uuliyadiisa tahay
aniga mas-uul ma dabageli karo awoodba kuma lihi fiiri awood war booliiskiibaa ila dagaalamahaya anigu waxaan noqday qof hir maaragtay mawjadda markay u socoto cagsigeeda u dabaalanahayaan noqday waddan dhan oo dadka dhan ay hal meel u socdaan oo mawjad qaldan ku socdaan ayaan waxaan isiri dhan kale u dabaalo waad hafanaysaa soo maha hafashadii haddaan ka soo badbaaday alxamdulilah ayaan leeyahay marka waxaa waaye yees tacaddi waa ka dhacay yaa geystay waxaa geystay dad yaa laga rabaa amnigii baa laga rabaa aniga amni gacanta ma igu jira maya booliiska gacanta ma igu jira maya nabad sugid gacanta ma igu jirta maya anigu keligay baa wiilasha ila socdo oo amnigayga anila leemiyaan ku ilaalinaya amniga muqdisho oo dhan ku ilaalin karaa suuragal ma ahayn inta la ii dhahay fiiri madaxweynaha waxaan ka codsaday 4 times aan wax ka codsaday in uu ii dhaho inta hadda uu dadka siina maaragtay madaxweyne fadlan ii dheh gobolkan amnigiisa mas-uul waxaa ka gudoomiyaha gobolkee la shaqeeya ii dheh la shaqeeya ha hoostigna anaa durugsanay fiiri anaa durugsanay la shaqeeya ii dheh la shaqeeya la ii diiday xataa moogta hadda fursadii markaas araadinaysa misleedahay gudoomiyaha hadda xilka haya waa uu helay aniga waxaan qabaa ma af mase practical run ahaan ma ogi practical waxa lagu wareejiyey run ahaan wax lagu wareejiyey ma aqaano laakiin af uu helay political support oo af ah uu haystaa asagay ku xiran tahay marka in uu ka shaqaysto asagay ku xiran tahay laakiin aniga afna la ima ogolayn practicalna la ima ogolayn nin waxaa la ii arkay markaan dhaho war amniga aan tala ku yeesho waxaa la ii arkay nin awood durkisanaya la ii arkay soo ma garan awood nin boob aad awood durkisanaya la ii arkay nin magaaladii amnigeedii inuu ka shaqeeyo raba la ima arag imayna arkaynin yani markay yimideen bacdow bay aniga ii haysteen number 1 enemy tarsan aan bedelno fiiri day 1 baa waxa lagu bilaabay tarsan la bedelaya tarsan la bedelaya tarsan la bedelaya tarsan la bedelaya warqadii waa soo baxday saxiixa meeshu maray markasta noo sheegi jireen maanta madaxweynaha soo saxiixay shalay prime ministerkii baa saxiixay wasiirka amniga gudaha geey waxaasa 24 hours intuu mar u adkeysan waayeen madaxweynaha hadda soo idaacad maaha madaxweynahan u tagay markaasaa madaxweyne gudoomiyaha gobolka ma shaqayn karo haddaadan kalsooni ku qabin waxaan uma adkaysan kara har iyo habeen meelaha lala wareegayo ama beenee ama haddaadan igu kalsoonayn xilka iga qaad baan ku iri haddaan tirin xilka ayaan ku iri haddaadan igu kalsoonayn anigu waxaan ku soo shaqeeyey fiiri sanad iyo bar shabaab baa dhulkaan haystay annaguba kamaanaan tilinayn soo ma garan 3 sano iyo 7 bilood baan anigu gudoomiye ahaa sanad iyo bar shabaab baa dhulkaan haystay annagu kamaanaan tilinayn 11 degmo maanaan tegi karin hal jid baa ii furnaa aan gobolka ku tago soo ma garan sanad baan shaqada aan qabanoo dhan waa sanad sheekh shariifa madaxweynaha iyo tiimkan markay yimideen aniga dagaalka waa ila dagaalameen tobeela la geliyay ka waran gudoomo gobol oo meerkii magaalada ah oo banaanka albaabka madaxtooyada albaab banaanka lagu celiyay ka war amarkaas askariga xaguu ka yimid in gudoomiye gobol oo ka noqdo askari uu dhaama galaysid laakiin gudoomiye intaad xilka haysiiso kama fiicneen inaad hadda dadka u soo bandhigto intii aad xilka haysiin shacabka u sheegto no qalad weeye adoo xilka haya iyo kaanood ma sheegi karto waxyaabahaas soo ma garan ama waxaan ku sheegaa markaan xilka ama buug baan ku qorahayaa waan ku sheegahayaa ama markaan memorigayga maaragtay aan xasuustay shaqadan qabtay buug baan ka diyaarinahayaa waxaasoo dhan waxaasaan ku sheegaya laakiin lama ogola sharcigu ma ogola dawlad aad ka mid tahay inaad wax ka sheegtid gudoomiye markay maqlaan dad badan maxamuud axmed nuur tarsan waxay isweydiinayaan hadafka siyaasadda aad ka leedahay hadafkaada muxuu yahay hadafka siyaasadda aan ka leeyahay waxaa waddankan oo lugihiisa ku istaaga waddankan oo lugihiisa ku istaaga waddankan oo karaamadiisii iyo sharafkiisii dadkiisii iyo dalkaba uu usoo noqdo waddankan oo canug kastoo soomaaliya uu tacliim farii ah helo waddankan oo qof kastoo soomaaliya ah uu biyo nadiif ah uu cabo uu helo waddankan oo horumar uu helo qof kastoo soomaaliya uu shaqo karaamo leh ee ilmihiisa uu ku masruufi karo uu helo waddankan oo ciidan xuduudyadiisa ku filan oo ilaalin kara qaranka hela waddankan oo karaamadiisii soo ceshta waddankan oo haybaduu lahaa iyo dadka soomaalida haybaddii laga jabiyey ee niyadjab lagu riday ee isdulleeyey loo dulleeyey dadka inaan soo celiya taas way wataan ka leeyahay anigu waddanka siyaasaddan ka leeyahay 16 aynu ku guda jirno musharax madaxweyne ma tahay sharxaysa anigu ilaa hadda system annaan aqoon kama hadli karno sababtoo ilaa hadda ma cadda systemka waxa lagu samaynayo ma cadda yaase mas-uul ka ah nin doorasho raba miyaa na maamulahaya fiiri nin asaga kursigii lagu tartami lahaa rabo miyaa na maamulahaya anigu marka hadday gaarto hab caynkaas uma sharciyeynahayo haddii nidaam darro iyo musuqmaasuq iyo cadaalad darro aan arko uma sharciyeynahayo inay tartan dhacay kama dhigahayo in wax
la karsaday oo la cunay baan u qaadanayaa marka weli weeye way inkastoo 4 bilood hartay mana arkaysid sasaan maaragtay dawladdan 4 bilood ay maaragtay ay ku diyaarinayso August waxaan la rabaa baarlamaan inuu dhisan yahay baarlamaan cusub inuu August dhisan yahay la rabaa wax tilaabo ah ay hadda qaadaysana uma jeedno marka waan arkaynaa wulsiid waan arkaynaa labadan bilood oo soo socdaan kullu waxaan u malaynayaa inay vacuum na gelin doonaan oo 2 bilood markii ka harta ama 1 bil ka harta ay dhahan waxba lama qaban karo 1 bil sanadan lagu daro ama 2 sanadan lagu daro fikirkaas inay wataan bay ila tahay laakiin waa nasiib darro haday wadanka qatar saas u geliyaan baahidooda iyo dareenkooda rabitaankooda inay wadanka qatar saas u geliyaan waa nasiib darro noqonaysa ugu dambeyn khibradaada siyaasadeed adigoo fiirnay shacabka Soomaalida ee duruufta badan la kulmay sanadihii badnaa maxaad u sheegi lahayd shacabkan waxaan leenahay shacab yahow shacab dulman baatihin shacab la dulmiyay baatihin shacab karaamadiisii dhulka lagu jiiday baatihin shacab sharafkiisii iyo magaciisii suuqyada looga dawarsadaa tihin shacab waxaa tihiin ilmahoodii ay gaajo u dhimanahayaan ay oon u dhimanahayaan ay biyalaan u dhimanahayaan shacab waxaa tihiin kuwii da'da ahaa ay cudurro yaryar oo sahlan ay u dhimanahayaan shacab waxaa tihiin aan horumarka adduunka 20 qarni marahaya aan la socon baatiin shacab waxaa tihiin la duleeyo oo la duleystay asbaabta ugu weyn waxaa waay qaybinta leedin qaybiye qabiil leedin qaybiye way asbaabta ugu weyn ee waxaa waay rijimada leedin qaybiye way wallahi inaan si kala durugna moogi habkan aan ku socono inaan isu soo dhawaanaynin mid kastana goonidiisa meeshuu degan yahay ee ay bahal ku cunahaya aan ka baxno dadka wanaagsan 22 sano aan soo dhaafnay waxaan hortaagnaa dadka aan aragti qaran lahayn dadka aragti qabiil leh aragtida qabiilka marka waxa weeye war dadkii aragtida qabiil lahaa ilaa qarankan qabiil buu ka koobmaa hadii qabiil wax loo qabto xataa qarankiiba wax loo qabtay noqon lahayd ma jiraan nin qabyaalad wax ku abaabulay oo wiilal ku dilay oo asaguna wiilashiisii lagu dilay oo iskuul ka sameeyay meesha uu ku dhashay ma jira oo biyo ceel ka qoday ma jira maya oo koronto u sameeyay ma jira oo shaqo u sameeyay ma jira oo wax u qabtay ma jira oo isbitaal u sameeyay ma jira marka waxa waaye fikirkan qabaliga ah waa madalays waxba kama soo baxayaan bulshadan inuu qaybiyo moogi wanaag uma keenayo naceeb iyo colaad iyo isnaa marka dambana dad baan hoosta ka wada galaynaa ajnabi ah dad baa wadankan qaadanaya dad baa idin gumaysan doona ilmaheena waxaan uga tageynaa annaka waliba iyadoo nala suuma salaaxaya ayaan ka tagi doonaa laakiin ilmihiina iyo ilmahay si dhalaan oo la gumaysanayo la adoonsanayo oo adoon ah oo la raranayo ayaa iman doonta taariikhdaas ilmahaasi waxay nacaladi doonaan annaka dadkeena hadda jooga ee wax qaban kara waxaan leenahay dadka wanaagsan Soomaali dad wanaagsan waa ka buuxan dad aqoon leh dad wadaniina waa ka buuxan laakiin 22 sano oo la soo dhaafay dib bay isu dhigahayaan waxaan rabnaa dadka ay dhab ka tahay Soomaalinimada qaran jaceelka wadan jaceelka wadankan inuu istaago hays raadsadaan frontigan ha soo galaan waxaan leenahay qof kasta oo Soomaali ah ee qabiil kasta ka dhashay ha u daynin mid qabiilkaaga ah ee waxba qabanaynin og tahay inuu asagu iibsanayo qaranka aad iibsanayo ha u daynin mid u shaqeeya danaha gaarka ha u daynin mid u shaqeeya danihiisa calooshiisa ha u daynin waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaali ah oo qabiil leh ee wanaag raba ee qarankan inuu xoogaysto raba in ay frontiga yimaadaan inay xildhibaannimada u tartamaan baan rabnaa qof kasta oo Soomaali ah wanaagsan xildhibaannimada u tartama meeshan ka dhiman halkaas waa xildhibaannimada ha u daynin xildhibaannada u tartan sababtoo haddii qabiil kasta dad wanaagsan ay xildhibaannada ka soo galaan wadankan waa la hagaajin karaa laakiin haddii xildhibaannada ay ka soo galaan dad aan danaysta ah oo ayagu ku danaysanaya ee lacag ku aruursanaya meelo ee danaysanaya haddii ka soo galaan waxa wadankan waa ku daayay bye buu noqonaa bye Soomaaliya inaan marqaati ka noqono ma rabno idinkana hadhow leedin kama cafinayo annaku kuma naan jirin siyaasadda kuma naan jirin oo gadaal baan isku dhigan leedin kuma cafinayo ilaahayna idin kuma cafinayo shacabka Soomaaliyeed idin kuma cafinayo taariikhdana waa xusi doonta frontiga la yimaado 2016 waxaan rabnaa qabiil kasta dadkiisa wanaagsan dadkiisa aqoonta leh dadkiisa wadaniyiinta ah in ay kuraasta ku cariiriyaan dadka kale oo ay frontiga yimaadaan oo ay wadankan aan ka tashano wadankan sidaan uga saari lahayn xaaladda uu hadda ku jiro si kalena ugama baxayo ilaa aan frontiga dadka wanaagsan ay yimaadaan waad mahadsantahay gudoomiye aad ayaan kugu mahadcelinayaa fursadaada qaaliga iyo sida wanaagsan oo aad barnaamijkayga la qayb gashay waa mahadsantahay kiin aad